markii ay falka dhacdana horeyna aan ula wadaagnay oo aan cabasho ka keenay in dhibkaas uu dhacay suuragalnimada dhibkaas dhicitaanka uu dhacay oo jawaabta aan ka bixinana in indhaha xafiiska xirlaalinta iyo garsoorkaba indhaha lagu wada haayo oo wixii intaas ka soo noqda baaristeedana la bilaabo wixii ka dambeeyna indhaha lagu haayo way taala documenti aan ka soo qornay oo aan maxkamadda iyo xafiiska xirlaalinta la soo wadaagnay waxaan anigoo fadhiya xafiiskayga meel barxad oo banaanka ah qaybta booliiska galbeed aan maqlay dhawaqa rasaas hugan ah oo hal mar la furay isla markii waxaan qadka u galay saraakiishii soo wargelisay in ciidanka la hareereeyay waa heli waayey markii aan helayna waxay ugu wargeliyeen ciidankii in la rasaaseeyey oo la xabadeeyey oo dhib meesha uu ka dhacay waxaan amray sarkaalkii aan la hadlayay aan dhahay ciidanka sarkaal u dir mas'uul ah ee ka xog keena ama ka war keena waxa la soo tabiyay iyo dhawaqa rasaasta aan maqalnay sarkaalkii sarkaal ayuu u diray waxayna jawaabtu sii noqotay ama sii dhashay dhibkii meesha ka dhacay maadaama aan xaq u leenahay booliiska nahay amaankana nahay bal wixii dhacay iyo cabashada ciidanka ka soo yeeray si qof mas'uul loogu diro oo soo warbixin uga keeno in ciidankii meesha u tagay inay soo baxnaaniyaan wixii meesha laga soo sheegay iyo dhawaqii rasaasta dhacday in ayagii mar labaad xabada lagu furo oo uu askari ka dhaawacmo taleefanka xigay oo soo wacay wuxuu ahaa sarkaalkii la diray oo aan la hadlay maxaa meesha ka dhacay marka ku dhaaway wuxuu yiri taliya askari ayaa iga dhaawac xabadna igu socotaa taleefankan waa igaaga baxyay waxaan wacay sarkaalka kaleeto oo amarka aan siiyaan dhahay u dir qof baxnaaniyo meesha waxaan dhahay meeshaas sarkaalkaas ha ku haleynine u tag la soo baxnaani askariga dhaawaca la ii sheegana isla asagii inuu xaaladina baxnaaniyo warbixinta ka keeno dhaawacina qaado iskuma keenayo arrintaas la maareeyo waa u baxay sarkaalkii marka uu baxay oo meeshii oo tagay maadaama dhacdada ay dhacday oo ciidan la hareereeyay oo ciidankii markii loo tagay oo la rabay in xaaladda la baxnaaniyo ciidankii la rasaaseeyay oo dhaawac meesha ka dhashay waxay ciidanku u xil saaran yihiin mas'uuliyadna ka saaran tahay qof dambi galay ee falgalay hubna wata oo aanan ciidankii u xil saarnaa ammaanka meesha joogin oo ahaa inay daba kacaan si maadaama dadkii dhacdadii hore dhacday oo dadkii wax dhacay ayagoo hubeysan baa soo qabanay in ayagana la qabto ayagoo hubeysan aan dhibna loo geysanin ayagana dhib kale aysan u geysan annaga waxaan dhowreynay inaan dhib la geysan macnaha asagoo qofka dhib geystay in sharciga la keeno oo aan lagu xadgudbi karin oo aan dhib loo geysan karin laakiin waxaa dhacday inuu galay guriga sheego Axmed Cali waa la soo wadaagay waxa la yiri gurigaas uu galay waxaan ku dhahay guriga oo gala suurgal ma aha guriga meesha banaanka guriga inta la gaarin jooga waa raadinayna oo wacayna mar kale aan wacayna xiriir sameeynayna inta aan xiriirka sameeynay ciidankii meeshii aan dhahnay bal qofkii dhibka geystay yuusan ka tagin bal meesha jooga aan dhahnay mar kale ayaa askari laga dhaawacay oo askartii joogtay aan meesha jooga si eedeysana loo soo qabto aan xiriirna u sameeyno ama talaabooyinka ku haboon go'aamada ku haboon loo qaato meesha jooga askari ayaa marka laga dhaawacay askariga la dhaawacay markii la isoo wargeliyay aniga ayaa si personal u soo baxay si maadaama wixii meesha falku ka dhacay baahay weynaaday si aan meesha wax uga hubiyo go'aamada ku haboonna iyo madaxda iiga sareysana aan isugu xiro oo arintaas si sharciga waafaqsan loo maareeyo markii aan meesha tagnay waxa meesha u gali weynay xabadihii rasaasti dhicis oo askarigi dhaawac ahaa ee dhacay ee ku dhacay meel jid isgoys ah ku dhacay loo tagi waayay oo in la soo qaado ay suuragal noqon weysay saraakiishii meesha ay soo tabisay in askarigi ay suuragal ahayn liifna uu saaran yahay wada isgoysana uu taagan yahay waxaan ku niiri marka laga joogo yaanan dhibka mid kala geenin meesha sida loo joogo xiriiraan sameynay madaxdii annaga naga sareysay ayaan wargelinay u sheegnay dhacdada meesha ka dhacday xiriir la sameeyay sheegow oo qadka la soo galiyay oo madaxdeedu qadka soo galisay wada hadal dheer kadib waxaan la amray in ciidanka meesha aan ka qaadno annaga sheegonu ciidanka uu xareysto annagana askariga dhaawaca ah aan soo qaadno oo aan geyno isbitaal geyno marka isbitaalka geynana meesha aan ka ruqaansano oo wixii meeshaas ka dhacay nidaamkeedii iyo sidii la isku xisaabtami lahaa loo aado aniga ayaa shakhsiyan la amray qofkaas ka hadirin adiga shakhsiyan bax baawurka booliiska maadaama xilli habeen tahay weligada calaamada nabadda ee booliiska daaro askarigaasna sheegu qadka kugu la jiraa waa la hadlay soo qaado
askarigii markii aan u dhaqaaqay oo amarna la siiyo ciidanka la ka qaada meesha ka sigta oo askarigii meesha oo yaala in qof dhaawac oo qaranka u shaqeynayay dhaawacan ah wadana yaalo wax xiriir ku sameeyeen in aan laga tagin suurgalna aysan ahayn inuusan qarankii u dhaacmo aan laga tagi karin mas'uuliyad naga saarantaa waxay jawaabtu noqotay ana u ruqaansaday inaan baxo oo aan soo qaado askarigii oo lay faray madaxdeedii u fartay in askariga la dhameystiro meeshii isgoyska ahay lagu dhameystiro uu meeshii ku geeriyoodo oo uu meeshii ku nafbaxo